kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada nagala socotay halkani waa radio Gadaacadka gobolka Gedo muujadirkeedu yahay 89.0 megahertz kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warkan waxa idin la socodsiin doona aniga Cabdullaahi Maxamed Xamed qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah qaar kamid ah darawalada ka shaqeeyo baabuurta yar yar iyo mooto bajaajta degmada Dalow Soomaaliya ayaa ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka dawladda Soomaaliya oo ka hadashay dib u dhaca doorashada Galmudug xildhibaano ka tirsan Puntland oo sharci daro ku tilmaamay xariga hawlwadeennada dhismaha wadada Boosaaso wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Puntland ayaa gaaray magaalada Qardho gudiyada joogtada ah ee labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xalay kulmay kuwaasi waxay ahaayeen warka gudaha warka caalamkana idinkuga haynan waxaa kamid ah madaxweyne Trump oo sheegay sidii lagu xalin karo arrinta Iran kuwaasi waxay ahaayeen war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray haatan ku soo dhawaada iyagoo tirsan qaar kamid ah darawalada ka shaqeeyo baabuurta yar yar iyo mooto bajaajta degmada Dalow Soomaaliya ayaa ka cabanaya sare u kaca qiimaha shidaalka warbixintaasi waxa inoo soo diyaariyay Cabdinuur Cismaan Cabdi degmada Dalow Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ku soo badanayo baabuurta yar yar iyo mooto bajaajta kuwaas oo inta badan ka dhex shaqeeyo gudaha iyo deegaano badan ee hoos yimaada degmada Dalow qaar kamid ah wadayaasha baabuurtaasi yar yar iyo mooto bajaajta ayaa ka cabanayo sare u kac ku yimid dhanka shidaalka taasi oo ku qasabtay darawaliinta inay gabi ahaanba ay yareeyaan shaqadii wadista gawaarida iyo mooto bajaajta dhanka kale sare u kacan ku yimid noocyada kala duwan ee shidaalka sida naftada iyo baasiinka ayaa imaanayo xilli sare u kac ku yimid lacagta dollarka oo inta badan laga isticmaalo magaalada Dalow iyo gobolada kale ee dalka magacaygu waa Maxamed Cali Cabdi oo Dalow Soomaaliya ka shaqeeyo waxaan ahnay kuwa qasaxlay meeshaan la intaan ka shaqeeyo marka shidaalkii aan ugu qaaliyo waxaan qaban malaha suuq waa nagu xumaaday lacagta awal tabarri dad ku qaadan ilaa intaan hadda suuq waa nagu xumaaday wax kasta shidaalkiina qaali uu nagu noqday ina baabuurtaan bikimeena ina kala garnaa ilaa inta baabuurtan waa isku badatay ilaa intaanay meel shaqaynaan shidaal waxaan ku haysan malaha hadda qaali awal raqiiska markuu ahay waa rooneen ma sha Allah waa iska fiicneen oo shidaalkan wax noo gaaraysan oo noo yaraan hadda laakiin hadda baabuurta ina bakino iska dhigno wax yaraan joognaa ina baabuurtan iska dhigno oo bakino waa muslimaan cabdi waxaan ka caawinaynaa shidaalka iyo shaqadii oo yar marka isma tarayso meesha baabuurtini waa isku badan niyo qasaxlay meesha ka shaqeynaa shidaalkii baa dib badan naga haysto 375 waa 10 litir 5 litir waa 175 waxa اليوم عد biilkii un baa helnaa wax gaari u dhacayo oo la helayaa kee malaha okay maxaa sababay marka waxaa sababay shaqada yar maalmaha suuq la'aan maalmaha raashinka iyo lafaha jiraan moogi inta kale waa jam waa wax shaqo jira malaha waxaan la Abdullaahi Maxamed waxaan joogaa degmada Soomaaliya waxaan hayay bajaaja kinada dadkin oo shaqada igaalo barkood 37 iyo gadaan 20 gadaan hadu 30 iyo 5 markii wali badan shaqada raqiisi
الآن دورك قدام بيت دورك قوت الرئيس فايل هذا سؤالك ممكن تقول قبضة أنت إيش لكن هذا شيء بيني شكل ملأ مركي والله قاعد ولا فولا قاعد مشي شكل فايل ملأ كنت لا فولا قاعد بس عن الله على عن الحرام شجاع لك كبير كلا برب شجاع لك كبير شنبق لو هذا سد بقول شجاع لك كبير لما بقول ما يرني لما بدلون كذي كنا نبغى كشل قوسا لا سيد صديق سيد صدقنا قديما حتى ما نقدر صدقنا الشام فايدون تصير فراي ملأ ولا شيء نشرال وقبض مشان دور أما على شيء لامبولي أو نشرال كل dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dib u dhaca doorashada Galmudug dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan Galmudug wixii ka dambeeyay 4 July bishan oo ku ekeed muddaxileedkii maamulka ee soo bilowday sanadkii 2015 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriya ayaa ka hadlay dib u dhaca doorashada iyo caqabadaha wali ka taagan dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay isagoo ugu horeyn ka hadlay safarka ra'iisul wasaare Khayre ayuu yiri ra'iisul wasaaraha muddo ayuu joogaa dadaal badan oo uu sameeyay wuxuu arkay dhaqanka dadka iyo culimada meel walba waa tagay degmo iyo tuulo waxa uu ku guuleystay in deegaanka iyo maamulka la isku soo dhaweeyo horeyna loo socdo ayuu yiri wasiir Cabdi Maxamed Sabriya wasiirka ayaa sheegay in ay arrimo la go'aansaday in wax laga qabto kuwa oo hadda hawshooda lagu gudi jiro waxaana ka mid ah ayuu yiri arinta ciidamada la qarameeyay ee ahlu sunna amniga magaalada Dhuusamareeb iyo dib u heshiisiinta iyo arinta doorashooyinka mar uu ka hadlayay dib u dhaca doorashada ayuu sheegay in dadka la isku soo dhaweynayo isla markaana dhibaatada jirtay khilaaf iyo waqtiga oo dhamaaday ay dawladdu go'aansatay in wax laga qabto ra'iisul wasaare Khayre iyo wafdiga hogaaminaya ayaa muddo bil ku dhow ku sugan Galmudug isagoo ku guda jira dadaalada lagu dhisayo maamulka Galmudug wali ay caqabado ka jiraan kadib markii qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug ay saluugeen qaabka ra'iisul wasaaraha wax u wado xildhibaano ka tirsan Puntland oo sharci darro ku tilmaamay xariga howlwadeennada dhismaha wadada Boosaaso waxaa markale inoo soo jeedinaya Cabdinuur Cismaan Cabdi 10 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa si wada jir ah u cambaareeyay xariga uu maamulkooda kula kacay samafalyaal si tabarucaad ah ugu shaqeynayay laamiga dhexmara magaalada Boosaaso xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka mid ah mudanayaasha baaqa jeediyay ayaa sheegay in sida ku qoran dastuurka Puntland aan qofna loo qaban karin loona xiri karin loona ciqaabi karin fal markii uu shakhsiga galo aan dambi ku ahayn sharciga dastuurka Puntland ma qabo xeer ay golayaasha dawladdu ansixiyeen mana jiro mid markaasi uu baarlamaanka jeediyay sidoo kale in dhaqaalaha dawladda Soomaaliya bulshada ugu deeqdo ay dambi tahay ciqaabna looga dhigo maxkamadna lagu geynayo ninkii sharciga hayana annaga hanoo keena ayuu yiri xildhibaan Saadiq xildhibaanadan ayaa waxay si wada jir ah ugu baaqeen maamulka Puntland in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo dadka xiran iyagoona sharci darro ku tilmaamay in dambi laga dhigo howlahaas mafalka ah iyo dhaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya ay bixisay maamulka Puntland ayaa dhawaan xabsiga dhigay xubno si mutadawacnimo ah isugu xilqaamay in ay dayactir iyo dhismo ka sameeyaan wadooyinka dhexmara magaalada Boosaaso wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa gaaray magaalada Qardho wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Kraash ayaa gaaray magaalada Qardho madaxweynaha waxaa ku heliyay safarkiisii xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho ayaa soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa waxa uuna si rasmi ah u daahfuri doonaa shir dib loogu eegi doono mashaariicda adeeg baahsan ee dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay iskaga kaashadaan gudiyada joogtada ah ee labada aqal baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo xalay kulmay waxaa warbixintaasi inoo eegaya Cabdinuur Cismaan Cabdi kulan wada jir ah ayaa xalay waxaa magaalada Muqdisho ku yeeshay gudiga joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana kulankaasi si wada jir ah u shir gudoominayay gudoomiyaasha golaha shacabka ee kan aqalka sare sidoo kale madasha waxaa goobjoog ahaa ku-xigeenada labada gudoomiye Cabdulle Sheekh Ibraahim Muude iyo Abshir Bukhari waxaana kulanka uu ku saabsanaa xoojinta iyo wada shaqeynta baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee ka kooban golaha shacabka iyo aqalka sare dhawaan ayay ahayd markii la xaliyay khilaaf siyaasadeedkii in muddo ahba u dhaxeeyay labada aqal ee dawladda waxaana kulankii xalay ahaa lagu ballamay hal xeer hoosaad oo ay ku wada shaqeeyaan labada baarlamaan iyo xoojinta wada shaqeynta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
dhegeystayaal waxaad naga dhageysanaysaan codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.0 megahertz studio kuwaad aan ku leenahay degmada Dalo Soomaaliya ayaad nagala socotaan warka caalamka idinkugu haynana waxaa kamid ah madaxweyne Trump oo sheegay sidii lagu xalin karo arrinta Iran istiraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan Iran ayaa u muuqata mid jahwareersan iyadoo ay u muuqato in Washington ay ka sii yaranayaan doorashooyinkeeda ku aadan in ay ka fogaato isku dhacyo madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada doorasho ee kala dagaal ama wada hadal ay suurtagal tahay in mid kasta uu dhici karo mar la weydiiyay isniintii meesha uu Mareykanka u jihaysanayo wada hadalka ama dagaalka ayuu Trump ku jawaabay in ay caadi la tahay haddii mid ka mid ah uu dhaco Trump ayaa cunaqabatayn saaray dalka Iran isagoo dhowr jeerna ugu baaqay inay miiska wada hadal soo maraan Trump ayaa cunaqabatayn saaray dalka Iran isagoo dhowr jeerna ugu baaqay inay miiska wada hadalka soo fariistaan intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa war wixii dalkiyo daafaha caalamkiina ka soo gaaray warkan waxa idin socodsiinaya anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud dhanka farsamada waa Maxamed Maxamuud Abdiraxmaan Maxamed Shariif warka waxa isku soo dabariday Cabdinuur Ismaan Cabdi halka aad ka dhageysanayseen waa radio Gedo codka gobolka Gedo muujada rirkeedu yahay 89.0 megahertz ayaa si toos ah ugu dhageysanayseen dhegeystayaal cidii warka uu dhaafay waxay dib ugu daalacaan karaan barta YouTube iyo Facebook aan ku leenahay radio Gedo intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono waxa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo